walbaad inaga daawanaysaan halkani waa telefishinka kulmiye xaruntiisa dhexe gobolkani Waqooyi Bari Kenya waxa la soo gaaray hadii ay nooga barateen in ay idin soo gudbino war wixii dalka iyo dunida inaga soo gaaray qodobada warka ugu waaweyn caawa waxa kamid ah gaalileyda magaalada Gaarisa oo suuqyada soo wajahday tirada taqaatiirta uu ku dhacay xanuunka COVID-19 oo sii kordhayso iyo Mareykanka oo laga soo tabinayo dhimashadii ugu badneed saacadihii la soo dhaafay qodobadaas iyo qodobo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan warkeena caawa markale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal hadii aynu ku bilaabno qodobkeena ugu horeeyay gaadileyda magaalada Gaarisa ayaa ka cabanaya rakaab yari kadib markii la xaqiijiyay in caabuqa coronavirus uu soo gaaray gobolka Waqooyi Bari warkaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya wariyaheena Cabdicasiis Akram tan iyo markii lagu sheegay gudaha dalkani Kenya caabuqa corona ayaa waxa yaraaday dhaqdhaqaaqyada gaadiidka dadweynaha ee magaaladani Gaarisa noocyihiisa kala duwan iyadoo dadka gawaarida raacay yaraatay wayahan dambe taasi oo keentay cabsida laga qabo coronavirus dhawaan ayay ahayd markii la xiray gawaaridii u kala gooshi jirtay gobolada laga helay kiisaska caabuqa corona darwalada gaadiidka dadweynaha ee magaaladani Gaarisa ayaa soo wajahay suuq xumo soo food saartay oo la yimid caabuqa corona waa kuwa qaar kamid ah gaadiidleyda oo ka waramaya wax maartay imaanay malaha magaaladii wax yar imaanay wixii imaadan way lugeynayaan mado ka darawalin ahaan ma jira agabyada haystiin oo dadka ay siisiin sida maskarada sanka lagu xirto waxyaalahaas ma jira waxaad haystiin oo dadka aad ka waxay may wax aan haysan malaha kulli had wax yar oo meelaha lagu gadgadayo magaalada dhexda oo hadda imaaday waan aragnay laakiin wax hore oo hadda la gaday ma lahayn wax sanka lagu xirtana ma jirin aad bulshada u sheegi lahayd marka maadaama idinka arintaas in haysto maxaan u sheegayaa bulshada horta inay maartay alaabtii sanka afka lagu xirnay ay raadsadaan oo xirtaan oo gaarida sida hore ee caadiga ay u raaci jireen ay u raacaan waayo hadda waxaan magaalada dhexdeeda aan ku aragnay oo maartay cudur oo hadda aan aragnay malaha marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha inay soo baxaan oo sida gaari u raaci jireen habeen marka hore u raaci jireen u raacaan oo agabka afka lagu xirnayo oo ay gataan taasan ka hadlaya goobaha gawaarida ay ka rikaabtaan ayaa waxa inta badan ka muuqda dad aan xirnayn maskarada iyadoo socodka dadka ay caadi tahay oo aan wax kala fogaansho aansan muuqan waxaan goobtaasi kula kulmay mid kamid ah darawalada oo ku iibinaya isla goobtaasi maskarada waxaanu iga waramay sababta ku kaliftay ama ka dambeysay inuu ku iibiyo goobahaasi maskarada waxaan ahaan jiray nin oo ka shaqeystay maartay baabuurtaan inta loo yaqaan altaha habeenkan shaqeysan jiray ilaa 3 saac maalinkii waxa ay baabuurta isku badan marka lacagna maartay baabuurtii way beelan oo shidaalkii aan ka waynay marka dantu waxay ugu qasabtay inaan soo qaato maskarka dadkii waxaan arkay inay u baahan yihiin maskarkan waxa la gadaa maartay aan gadahay xabadii 20 shilin marka dadkii maartay inay u baahan yihiin cuduradan ay zaid noqotay arkay marka waan ku caawinayaa dadka maartay anigana maartay nolol maalmeedkayga ka raasanayaa marka baabuurtii shaqo waa ku waynay shidaal maartay hata waa ka waynay maalintii aan ka shaqeysan jiray habeenkii maalintii baabuurtu waa isku badatay habeenkina maartay waxa la xiray maartay magaalayaalkii kaafiyo baa dhacay 12 markii la gaaro waa galbanina marka shaalka xagan ka raadsan jirnay maalintii nolol maalmeedka gaar baabuurtan ka raadsan jirnay dhawaan ayay ahayd markii laga helay 2 qof oo qabta COVID-19 gobolkani Waqooyi Bari Kenya gaar ahaan ismaamulka Mandera Cabdilcasiis Ibraahim Cabdi Kulmiye TV magaalada Gaarisa ururka taqaatiirta oo shaaciyeen in ay kor u kacday tirada taqaatiirta uu ku dhacay xanuunka COVID-19 warkaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya wariyahayaga Cabdullaahi Xuseen tirada taqaatiirta uu haleelay xanuunka COVID-19 ayaa haatan gaartay 6 sida ay sheegtay ururka ay ku bohobeen taqaatiirta dalka ee kuko xogayaha guud ee ururka kuko Mr George Gibre ayaa xaqiijiyay inay la tacaalayaan 6daasi dhibane balse ay ka soo horjeedsadeen inaan taqaatiirtaasi aysan helin daryeelkay u baahanayaan halka ay yihiin kuwa halista ugu jira daryeelka xanuunka daraasad ay sameysay ururka taqaatiirta dalka ee kuko ayaa sheegeen inay qiyaastii 68% howlwadeenada caafimaadka ee ka howlgala cisbitaalada dawladda aanan loo tababarin sidii loola tacaali lahaa xanuunka coronavirus daraasadkani ayaa lagu sheegay in 90% taqaatiirta ay helaan marada afka lagu xirto ee loo yaqaan maskarada halka 57% kaliya ay helaan gloveska ama gacmo gashiga Mr Gibre ayaa ka codsaday in dawladdu ay soo dedejiso kunka howlwadeenada caafimaadka kuwaasi oo madaxweynaha uu horay ugu dhawaaqay in lagu kordhinayo wasaaradda caafimaadka si loola tacaalo caabuqa coronavirus Cabdullaahi Xuseen telefishinka Kulmiye
madaxa xisbiga mucaaradka dalka Raila Odinga ayaa deeq raashin gaarsiiyay shacabka ku dhaqan Kibra warkaasna waxa inoo soo jeedinaya wariyaheena Cabdicasiis Siyaad Ra'iisul Wasaarihii hore dalka ahna hogaamiyaha xisbiga ODM Master Raila Odinga ayaa raashin gargaar ah oo ku fadhiya qiimo gaaraya 15 milyan oo shilinka dalka u qaybiyay shacabka ku nool deegaanada isku raranka ah ee Kibra ee magaalada Nairobi. deeqdani raashinka ah ayaa loo qaybiyay qoysaska saboolka ah ee ku nool deegaankaasi si ay uga badbaadaan culayska dhaqaale ee ka soo gaari kara caabuqa coronavirus sida uu sheegay afhayeenka Raila Odinga ninka lagu magacaabo Dennis Onyango. hogaamiyaha xisbiga ODM Master Raila Odinga iyo xaaskiisa Hilda Odinga ayaa maalintii Khamiista raashinkani oo isugu jira cunto saliidda cuntada lagu karsado iyo biyo ayaa waxa ay u qaybiyeen shacabka deegaankaasi Kibra iyagoo u sii marsiinaya dawladda dhexe. waxa uu Raila Odinga tilmaamay inay tahay in dawladdu ay fiiro gaar ah u lahaato xaafadaha isku raranka ah ee Mukuru iyo walibana Madare iyo walibana Kangemi oo kamid ah isku raranta kuna yaala magaalada caasimadda dalka ee Nairobi iyo sidoo kale tan ismaamulada kale ee dalka sida Mombasa, Nakuru, Eldoret, Kisumu iyo Kakamega. Cabdicasiis Siyaad warbaahinta kulmiye. dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyaad oo ka socda gobolka Sanaag warkaasina waxa inoo soo jeedinaysa Zubayda Saalax. wararka naga soo gaariyo gobolka Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya waxay sheegayaan in dagaal beeleed xoog leh uu saakay ka socdo deegaanka Waqadheeriya oo dhaca xeebta gobolkaas. dagaalka oo bilowday waa berigii hore ee Sabtida maanta ayaa waxaa la sheegay in xoogiisu uu ka socdo deegaankaas oo galbeed ugu beegan degmada Laasqori ee gobolka Sanaag. dagaalka ayaa u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed oo halkaas wada dega waxaana la sheegay in sanadihii la soo dhaafay ay dagaalo badan ku dhaxmareen deegaano badan oo ka tirsan isla gobolka Sanaag. ilaa hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaal beeleedkaas. isgaarsiinta deegaanka oo aad u liidata awgeed maamulada Puntland iyo Somaliland oo ku hardamo gacan ku haynta halka ay maanta dirirtaasi ka socoto ayaan weli wax war ah ka soo saarin. sidoo kale ilaa hadda ma jirto cid kala dhaxgashay dhinacyada dagaalamaya. Zubayda Saalax, telefishinka kulmiye. tiro kor u dhaafaysa 2,000 oo ruux ayaa dalka Mareykanka ugu geeriyootay xanuunka COVID-19 saacadihii ugu dambeeyeen warkaasina waxa inoo haysa Filsan Xasan. Mareykanka ayaa noqday wadanka ugu badan oo maalin qura ku geeriyoodeen dad uu soo ritay cudurka coronavirus waxaana 24 saac ee la soo dhaafay ee tirada dhimashada ka badan tahay 2,000 oo ruux ah. sidoo kale waxaa batay kiisas cusub oo la diiwaan geliyay saacadihii la soo dhaafay gudaha dalka Mareykanka haatan wuxuu u dhaafay tirada dhimashada COVID-19 dalka Talyaaniga oo ahaa dalka dadka ugu badan ay cudurkan ku geeriyoodeen. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo dhimashada ay ka soo hoos mari karto 100,000 tiradaas oo horey loo soo daalin jiray. Filsan Xasan, telefishinka kulmiye. halkaasi waxa inooga eeg wixii dalkii dunida inaga soo gaaray warkan waxa idin la socodsiinaya anigoo Ikraan Maxamuud intaan warkan kiisii ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.